السلام عليكم دمان أصحابتك وحيران أمجد أكاديمي كسو دوادا دولمر أما مراجعة عن كسمينينو تريد عن كقادني أما عن كسميني استراتيجي دين عصب برايس أكشن هدو عن كعصنينا إنا جانك سبسكرايب سارتيد سينا شير جريسيد كان من نقطيد أمجد كوميونيتي مهد سنيد haddii aan ku bilowno lacagteena ugu horeyso aan fursad ka abuurnay isbuucii hadda soo dhamaaday waxa weeye Australian USD ama Australian dollar haddii aan intaan guda gelin qaabka aan u qaadanay iyo waxa aan fiirinayna aan dulmar yar ku sameeyno waxaan ognahay mar walba suuqa wuxuu ku jiraa trendy haddii aan aragno tusaale qiimaha inuu sameeyay dhaqaaq xoogan waxay ka tarjumaysaa in buyerska ay control ku yihiin laakiin haddii aan aragno qiimahaas in uu sameeyo cadaadis fara badan in lagu sameeyo oo mar walba oo kor u dhaqaaqo oo higher highs sameysanayo oo mar walba la soo celiyo sida hadda meeshan kaaga muuqato waxay ka tarjumaysaa in buyerska ama suuqaas buyerska ay controlayeen ay awoodooda ay yaraatay marka trendiga uu ku jiray oo ahaa up trendy in uu dhamaan karo oo ay waqtiga uu dhamaan lahaa ay tahay soo marka istiraatiijiyadeena cusub price action ka ah waxaan fiirinaynaa meesha ugu dambeysay ama trendy janjiga meesha uu ka dhacayo qaybta ugu dambaysa sidee loo soo jebiyay ayaan fiirinaynaa marka tusaale haddii qiimahan uu ku jiro ascendingkan oo cadaadiskan aad u xoogan lagu sameeyay oo qiimaha mar walba kor aado la soo celinayo mar walba kor loo qaado la soo celinayo mar walba kor loo qaado oo qiimaha soo noqonayo marka waxaan sugaynaa in qiimaha la sameeyo impulse xoogan then marka laba qaab ayaan fursad uga abuuri karnaa qaabka koowaad aan u bixinay wax loo yaqaan Z formation ama wax oo continuation pattern ah marka haddii uu Z formation ka sameeyo Z formation waxay ka kooban tahay two highs iyo two low macnaha in qiimaha impulse xoogan markuu sameeyo then inuu qiimaha wax yar kor u laabto then uu qiimaha hoos u soo laabto asoona dhaafin laa uu hooseeyay then uu ka sii kormaro meeshii uu qiimaha ka soo laabtay inuu ka kormaro haddii aan aragno formation ka Z ka ah then qiimaha waxaan sugaynaa haddii aan fursad down ka abuurinayna waxaan sugaynaa bearish candle haddii aan kor ka abuurinayna waxaan sugaynaa bullish candle marka kaas waxaan u bixinay Z formation aan u bixinay sidaasna waxaan u abuuri karnaa fursad ayaan u abuuri karnaa okay qaabka labaad oo fursad uga abuuri karno waxa waaye in aan ka abuurno bullet waxaan loo yaqaano bullet kaas waxa waaye qiimaha inuu sameeyo nice impulse then qiimaha oo ku sameeyo retrace meeshii trendy janji ka dhacayay meeshii trendy janji uu ka soo sameeyay inuu ku sameeyo wax oo inuu retrace ku sameeyo okay marka meesha hadduu qiimaha ku laabto waxaan sameynaynaa bending order wax oo bending order sameynaynaa oo sell limit ayaan meesha sii dhiganaynaa haddii qiimaha uu soo jiray ascending waxaan sii dhiganaynaa sell limit marka formationadaas ama qaababkaas ayaan waxaan price action keen oo ku fadhiyaa mar walba waxaa muhiim ah inaad price action ka aad xoog saartid maadaama uu yahay luqadda suuqa luqadda suuqana waxaa muhiim ah in aad barato ama aad xoog saartid aad waqti fara badan gelisid okay haddii aan u soo laabano lacagteena Australian USD sababta u qaadanay qaabka u qaadanay waxaan u jeednaa markii aan qiimaha joogno meesha markaa joogno oo ah meeshii aan ka soo qaadanay oo horeen waxaan u jeednaa inuu qiimaha sameeyay nice impulse xoogan inuu sameeyay oo qiimaha sida u jeedid inta wuxuu ku jiray mar walba markuu qiimaha kor aado ama hoos u soo dhaco wax yar oo kor u naqanayay impulse xoogan ama buyers ama sellers midkood ma uusan controleen laakiin hadda markii aan u jeedno meeshan waxaan u jeednaa nice impulse inuu qiimaha aad si qurux badan oo kor u aaday okay mar walba annagana aan aragna impulse waxaan fiirinaynaa structure-ka ama formation-ka waxa sameysma ayaan fiirinaynaa okay maadaama hadda aan heysana impulse waxaan expect gareynaynaa ama waxaan sugaynaa qiimahaas inuu sameeyo waxa aan u naqiinay Z formation inuu sameeyo si aan u abuurno ama continuation pattern inuu sameeyo in qiimaha uu sameeyo low another oo ka sii hoos maro then meeshaas ay noqoto meeshii aan ka abuur lahayn fursadda buyga ah meesha ka sameyn lahayn inay noqoto marka
maadaama marka aan haysano impulse xoogan waxaan sugaynaa continuation pattern inuu sameysmo. Okay, maxaa dhacay marka sida u jeedid candlekan waxa waaye waa corrective ama waa trend change ma ahan oo waa continuation. Okay, candleka kale sida u jeedid candlekan qiimo hoos u soo dhacay wax yar, candlekii labaad oo ka kor ma uusan ka kor marin laakiin muhiimadu ma uusan ka soo hoos marin oo qiimaha kor ayaa loo celiyay xogaa yar ayuu kor u noqday. Okay, next candleka saddexaad maxaa dhacay laawgii hoose ama meeshii aan calaamaysanay ayuu ka soo hoos maray. marka waxaan haysanaa qiimaha inuu hoos u soo dhacay, inuu kor wax yar aaday, danna inuu ka hoos maray meeshii aan rabnay. marka waxaan sugaynaa in uu sameeyo candle oo bullish candle inaan sugno. then waxaa u jeedaa waxaa sameysmay bullish candle ayaa meesha ku sameysmay. soo marka orderkaas waxa waaye tradekeeni ugu horeeyay aan qaadanay ayuu ahaa. Okay, marka aan meeshaas qaadano marka step 1 stop loss keena waxaa ka dhigi karnaa adiga 20 bib maximum 15 bib hadba waxay ku xiran tahay personality-gaaga ama adiga backtesting-ka aad samaysid waxa kuu soo baxo. Okay, anaga hadda waxaan ka dhigaynaa 15 bibs. Okay, maxaa dhaca kadib marka? Okay, waxaan u jeednaa marka qiimaha inuu dhaqaaq inuu sameeyay. marka meeshaan laawgan aan haysano waxaan stop loss keena soo rari doonaa haddii la jabiyo this highgas markuu qiimaha jabiyo stop loss keena waxaan keenaynaa aad reduce aan ku sameynaynaa ama meel aad u dhow meesha aan ka galnay ayaan keeni doonaa maadaama qiimaha meesha uu hooseysay ay tahay meeshaas. Okay, marka sida u jeedid waa la jabiyey laawgeena marka highgeena qiimaha meeshaas ayaan geenay, qiimaha meeshaas ayaa noogu sareyso. Okay, markii ugu horeysa aan soo rarno marka waa kaasa. then waxaan u jeednaa qiimihii haddana wax yar ayuu wuxuu sameeyey correction ama retrace ayuu sameeyey, nasiina ayuu galay. Okay, marka waxaan sameynaynaa haddana maxaa dhacay kadib hadduu sii jabiyo marka sida u jeedid hadduu meesha sii jabiyo waxaan sameynay inaan stop loss keena soo rarno. stop loss keena inaan soo rarno ama laawgeena horta ugu horeyn inaan soo rarno. laawgeena meeshaas waaye maadaama candlekan dhaan u ahaa candlekan oo ma uusan ka hoos marin waa retrace candle ama waa counter candle waaye. Okay, stop loss keena marka waxaan keenay meeshaas wax inuu yaalo yar. marka stop loss keena hadda waxa waaye waa 9 bps oo waxaan haysanaa profit ayaan haysanaa ama 0.6 profit ayaan haysanaa xitaa hadduu nagu soo laabto. Okay, haddana maxaa sii dhacay qiimihii ilaa hadda kor u socdaa haddii aan aragna candle counter ah. Okay, hadda waxaan u jeednaa marka candlekan marka aan qiimeyno si fiican candlekan wuu ka kor maray laakiin hadduu usan ka hoos mari lahaynin wuxuu ahaa lahay trendiga sidiisa ayuu socon lahaa. laakiin candlekan waxaa lagu xiray areadaas ayaa meesha ugu hooseysa ah, candlekan wuu kasii hooseeyaa. soo marka waxaan ku qasbannahay inaan laawgeena soo rarno aan keenno meesha stop loss keena si lamida inaan keenno meesha uu hooseyso laba bib inaan meelahaas aan ka hoos marino waayo waxaa macquula qiimaha inuu testi gareeyo then uu sii socdo. marka hadda waxaa laga yaabaa qiimaha inuu sameeyo ascending then uu iska dhaco, waxaa laga yaabaa inuu qiimaha flag uu ku jiro then qiimaha kor inuu sii aado. mar walba uu qiimaha kor aado ama impulse xoogan sameeyo waxaan isku dayaynaa inaan trade kale ka abuurno. Okay, laakiin waxaa dhacday in qiimaha uu candlekaas soo laabto then meeshaas uu ku xirmo oo dharki. marka tradekii ugu horeeyay oo aan ka qaadano new price action wuxuu noqday profit ah 2% ayuu noqday. Okay, marka qiimaha marka waxaa u jeedaa impulse then correction impulse then markii qiimihii waxaa sameeyey spike ama fiiqdi ayaa waxay sameysay inay tradekii naga saarto laakiin wuxuu noqday 2% profit. Okay, haddii aan u gudubno lacagtii labaad aan qaadanay waxay ahayd USD-yan. Okay, USD-yan marka haddii aan isla fiirino waxaa u jeedaa qiimaha in uu aad u soo dhacay. marka waxaan sugaynaa maadaama qiimaha aad u dhacay inuu sameeyo Z formation inuu qiimaha inoo sameeyo. Z formationkaas qiimaha marka inoo sameeyana aan ka abuurno fursad sal ah inaan ka abuurno inuu tusaale qiimaha wax yar kor u kaco then uu soo dhaco qiimaha uu kor aado then meeshaas ay noqoto meeshii aan ka soo qaadanayno fursadda salka aan meesha ka soo qaadanayno. Okay, maxaa dhaca marka sida u jeedno wuxuu sameeyay qiimaha kor oo aad soo ma. Okay, meeshaas ay ka soo laabtay waxaan ku sameeynaa marka inaan calaameysano mar walba oo qiimaha meeshaas uu jabiyo haddii aan aragno bearish candle
waxa waaye waxaan ka abuureynaa fursad sal ayaa ka abuurnay. Okay, sida u jeedid qiimihii wuu jebiyey. Okay, candleka jebiyey waa candleka. sida u jeedid qiimaha impulse haysanaa, qiimaha wuu jebiyey, waxaan haysanay bearish candle ayaa sameysmay. soo marka meeshaas ayaa aheeday meeshii fursadda salka ah ka abuurnay ama fursadda salka meesha ka galnay. laakiin maxaa dhacay? sida u jeedno qiimihii ugu dambeyn qiimihii wuu naga saaray oo wuxuu noqday -1%. okay, tradekeena ugu horeeyay wuxuu ahay 2%, kana waxa waaye waa -1%. soo marka waxaan joognaa 1% profit ayaan joognaa, waxaana qaadanay 2 trade. okay, haddii aan u gudubno tradekeena ugu dambeeyo aan isbuucan analyze gareynay, aan isla fiirinay, wuxuu noqon doonaa Eurocad ama Euro Canadian. sidaan u jeedno markii aan tagno aan meeshaan isticmaalno ribalaygeena. okay, marka waa kana hayge lawgeena ama qiimaha meesha ugu hooseyso waa meeshaan ugu sareysana waa halkaa. okay, waxaan ka abuuri karnaa marka Z formation ama bullet haddii ay na siiso, laakiin lacagta inta badan bullet ma ku sameyno. lacaga qaar ayaa bulletka aqbalaya, lacaga qaarna waxa waaye ma aqbalayaan. laakiin inay aqbalayaan ama inaysan aqbaleynin waxaad ku ogaa kartaa mar walba. waxaa muhiim ah inaad sameysid backtesting. okay, hadda waxaan haysanaa nice impulse, qiimaha si fiican ayuu down u sameeyey ama hoos uu soo dhacay. okay, waxaan sugi doonaa qiimaha inuu kor loo qaado, wax yar uu dhaco, kadibna qiimaha markii wax yar kor loo qaado qiimaha meesha tago, then uu soo laabto uu ka kormaro, then inaan ka abuurno fursad sell ah inaan ka abuurno. okay, marka sida u jeedno haddii aan isla fiirino waxaan haysanaa. okay, ma uusan ka kormarin still, waxa waaye this impulse waaye, waa this correction. qiimihii wuu soo dhacay, marka waxaan calaameysanaynaa areadaas ayaa calaameysanaynaa. haddii areadaas laga kormaro qiimaha waxaan ka abuuri doonaa fursad sell ah ayaa ka abuuri doonaa. okay, waxaa u jeednaa qiimihii uu ka kormaray, candlekaas ayaa inoo xirmay, danna waxay aheeday meeshaas ayaa waxaan ka abuurnay fursadda salka aheed, waxay aheeday this area ayaa ka abuurnay. okay, salkeena meeshaas ayuu ahaa. stop losskeena waxaa ka dhigi karnaa 15 bps wixii ka badan ilaa 20 bp. okay, hadda marka waxaan haysanaa Z formation, tradekana meesha ayaa ka galnay, kadibna waxaa dhacay sida u jeedid qiimaha inuu soo dhacay si xoogan inuu soo dhacay. okay, waxaan sameynaynaa meeshaas ayaan soo rarnay. stop losskeena still wax ma aanan soo rarin. stop losskeena weli waxaan ku jirnaa riski, inkastoo qiimaha uu dhaqaaq fiican sameeyey oo profits fiican oo ina siiyey, laakiin waxaa muhiim ah inaan aragno counter candle ama candle oo ah aan continuation ahaynin oo correction ah. okay, waxaan helnay candle oo aanan ka kormarin aanan ka hoos marin oo counter candle ah. then haddii qiimaha meesha la jebiyo stop losskeena waxaan ku sameynaynaa inaan soo rarno. stop losskeena marka waxaan keenay, stop losskeena markii ugu horeysay meeshas ayaan keenay. okay, marka qiimaha haddii aan sii wadno waxaan sii wadnay ilaa hadda. marka maanta tradekaas uu inoo furan yahay, waxaanan miiska inoo saaran 5.4%. soo marka waxaan sameynay isbuucan saddexdaas trade aan sameynayne hal trade wuxuu ahaa 2%, tradeka kalena waxaa lose gareena 1%, kana hadda waxa inoo socdaa 5.4%. waxaan rajaynaynaa inuu qiimaha sii socdo. waxaa dhici karo waxaan kasii abuuri karnaa fursad kale, maadaama hadda lawgeena highgeena uu sareeyo waa halkaa. okay, inkastoo hadda qiimaha uu samaystay spike ama fiiq uu samaystay, mar walbo spikes aragno waxaan rajaynaynaa in uu samaysto suuqa ranging ama uu galo sideway, maadaama uu dhumiyey momentumkii. soo haddii aan helno impulse qurux badan waxaan kasii abuuri doonaa fursad kale. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa videogeena maanta, waxaana kasoo sameyn doonaa fiidiyoyaal kale insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.